بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan doonayaa inaan kelmad yar oo kooban oo aad u kooban ka ilaahdo sidaynu saaka kuwa bariisanayno aragnay waxaan la soconay in shir Djibouti uu ka dhacay oo Somaliland iyo Soomaaliya ay ku lahaayeen oo beesha caalamka iyo dawladda Djibouti ee wadamada gobolka qaar ka mid ah ay joogeen shirkaas sidaynu la soconay heshiis ka soo baxay hore oo layna tusay ma jiro saxiixii iyo wixii aynu habeenkii daawanay sida xaqiiqadu ahayd waxay ahaayeen minutieskii shirka lagu galay oo la saxeexay in minutieskii shirka ahaayeen heshiiskii rasmiga ahaa ama communiqueegi shirarka marka la galo la soo saaro waa communiqueega ilaa xalay saacadihii dambe ilaa saaka in soo gaaray marka fursad hore oo ma jirin wax lagaga yiraahdo laakiin maadaama maanta communiqueegi deyn hor yaalo waxa furan fursad wax lagaga yiraahdo waxaan isleeyahay communiqueega qofku markuu akhriyo su'aalo farabadan baa maskaxdiisa soo galay oo u baahan in xukuumaddu dadka si fiican uga shaafiyeesho oo ay uga hadasho afar qodob oo waaweyn buu heshiisku amaba communiqueegu ka hadlaya afarta qodob marka waa inaan isweydiina halka inagu wadaanay inagu riixayaan inagu leergaraynayaan macnahooda iyo nuxurkoodu muxuu yahay marka service-ka sare iyo muuqaalka sare ee kelmadaha laga tago maxay buu yahay marka su'aasha koowaad ee manasaba waxa weeyaan shirka waxaynu ogeeynu 18kii bisha soo dhamaaday shirkii 18kii bisha soo dhamaaday maxaa 22kii bisha soo saaray communiqueegiisi ma WhatsApp-ka lagu sii xidhiidhayay ma wada hadalla aynaan ogeyn baa socday maxaa la qarinayay maxaa la qoosheeyay mise dabaaldegii iyo guulbeenaadkii la doonayay in la inoo sawiro ayaa dib looga dhigayay xaqiiqadu marka ay soo baxdo oo dadkan ayaa dad la bartay oo la fahmay oo la daraaseeyay taasi waa su'aasha koowaad ee u baahan inay xukuumaddu ka jawaabto oo maxaan ku raahdaa mar labaad madaxweynuhu gaariga u soo koro arinta labaad ee iyaduna arrimaha u baahan in laga hadlo ee laga jawaabo waxa kamid ah afar wax baa leeyahay waa laga hadlaya oo meesha lagaga hadlay mid waa arrimaha maamulka hawada midna waxa weeyaan arrimaha dhaqaalaha midna waxa weeyaan arrimaha isdhexgalka isdhexgalka erayga aad u dhageysta isdhexgalka maxay macnaha dhadhamiyo oo macna nooc ma ayay leedahay meenu isdhexgalanaa mise waynu kala guranaynaa ujeedada ay madaxweynuhu u tagay wafdigeenu meesha ay u tageen maalintii markii wasiirka hawlaha guud wasiirka Saciid Sulubu hadlayay waxa uu ka hadlay oo sheegay in ay qodobka diideen in la isdhex galo maxaa maanta qodobkii ku soo daray ee communiqueegan hadda la inoo soo saaray ku soo daray asalan ba hadaad maqashaan federalism waxa la yiraahdo qeexitaankiisa iyo macnihiisa rasmiga ah ee uu leeyahay waxa weeyaan in waxna lagu la maamulo waxna Soomaaliya ay gaar u maamusho dawladda dhexe ee wadankaasi uu leeyahay wadanku doonaha noqday inay wax maamusho dawladaha kamidka ah ee dawlad goboleedyada kamidka ahina ay wax la maamulo marka waxa laga hadlayaa dhaqaalihii in la wada maamulo waxa laga hadlayaa hawadii in la wada maamulo ama sidan loo dhigay ha noqoto in hawada Somaliland iyo Soomaaliya isku jirta ha la wada maamulo ama ha noqoto hawadii Somaliland ha la wada maamulo waxa weeyaan oo sida wasiirku sheegay uu yiri khada madbiciya baa dhacay taasoo aynu sugayno in dawladda Djibouti ay soo cadayso oo aanan wali haynin laakiin tiise arinta muhiimkii waxa weeyaan maxaa la wada maamulaya maxaa kalifaya in la wax wada maamulo wadamada dunidaynu naqaan ee wadamadoodii ka go'ay dariiqyo noocan oo kala miyay mareen mise waa dariiq cusub oo inagu aynu jeexayno arinta marka la leeyahay isu socodka iyo isdhexgalka iyo waxa la xoojinaya oo kor loo qaadaya waxyaabaha aan siyaasiga ahayn xaaladii baa la caadiyeynaya waana istabta koowaad ee marka wadamo la midaynaya la maro waa dariiq caalami oo yaalo oo la yaqaano maaha wax cusub oo imika halkan lagu ixtiraaqay oo la sameeyay wadamada dunida ujeedadoodu ay tahay inay mustaqbalka noqdaan hal wadan oo kaliya amaba nidaam federaal ay sameystaan halka ay ka bilaabaan waa isdhexgal baa la yiraahdaa isdhexgalka waxa laga bilaabaa meelaha fudud ciyaaraha laga bilaabaa waxa laga bilaabaa arrimaha dhaqanka laga bilaabaa arrimaha maxaa kuwaasi aynu wadamada kale ee jaarkeena heshiis noocaas ula galweyn aynu Soomaaliya ula galeena waxaan leenahay oo aan doonaynaa xukuumadda aan u soo jeedinayna arintan waxa u baahan tahay in la cadeeyo
arrintan waxay u baahan tahay in laga daayo muhmalka iyo muuseynta iyo daditaanka in laga daayo arrintan waxay u baahan tahay geesinimo iyo in dadka runtu waxay tahay loo sheego dadku deetana tashadaan waa runta ma aqbali karnaa mise ma aqbali karno laakiin tiise in maalin walba dadka inta indhasarcaad loo sameeyo dadka masaakiinta ah ee taagta daran ee noognahay dhaqaalahoodii halku taagan yahay ee aan dawladnimo ay ka yiraahdaan ay ku nastaan aan loo sameeynin oo aan wax noloshoodii taabanaya aan loo sameeynin maalin walbana hadana la xaqijinayo maalin walba hanka loo soo kicinayo oo gawaadhi madax furan inta loo soo koro oo sidii maxaan ku raadey kooxihii kubadda soo qaadi jiray gacanta loo lulo la yiraahdaa maantana guul baynu soo gaadhin waxaan leenahay ilaahay ka cabsado dadka masaakiinta ka daaya dhibta iyo xamaasad gelinta aan xaqiiqada iyo guusha aan ku salaysnayn waxaan doonayaa in hadalkaygan kooban aan ku soo gabagabeeyo communique-gi waxa halka ku qoran baana rasmi ah ama la yiraahdo khalad madbici ama la yiraahdo dawladuhu inta badan way adag tahay inay khalad madbici sameeyaan waayo waxaan inta soo goor baa la akhriyo inta soo goor baa la baadha inta soo goor baa la eega laakiin hadduu khalad madbici yahay wixii madbici ku jira uu soo bixi doona oo de waa la saxaa markiiba laakiin arinta u baahan in la ogaado waxa weeye waxa la leeyahay aan wax wada maamulo macnaheedu meel buu ku socdaa shacbiga reer Soomaaliland marka waa inay taa ogaadaan waa inay caadifada iska daayaan waa inay iska daayaan in la xamaasa geliyo tio aan wax guulaha loo keenay aanay jirin tio isdhaxgal iyo sport iyo in la isu socdo laga hadlaayo oo xiriirkii la caadeynayo inaan hadana la oran halka u socoteen waa halka oo aan maalin banin meesha u socdeen aanu isagu farta ugu fiiqana ay iyagu bartaan waxay doonayaan iyo halka u socdaan runtii xaqiiqada ay aqbali karaan ay doodi karaan ay madaxdooda wax weydiin karaan ay la xisaabtami karaan baarlamaanka maanta shaqo weyn ba heshiiskan uga yaala hadduu inuu baarlamaan haddii inuu dawladnimo jirto haddii inuu isla xisaabtan jiro oo wadankeena isla xisaabtan yaalo heshiiskan maanta ama communique-gan baarlamaanka shaqo weyn baa uga yaala inay madaxweynaha u yeedhaan su'aalo weydiiyaan ka wareystaan shacbiga deetana saa loogu soo bandhigo aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.